madaxweynahan soo salaamaya anagu Soomaaliland banoho waa hanuunsanahay afkii hooyana dhamaan waa u hagarlanahay oo wana taabkii ogaan shacabkan wadnaa dadweyne aad u tiro badan ayaa kaga hor yimid madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo safar ku maray gobolada bariga Soomaaliland kaasi oo ay si diiran ugu soo dhaweynayeen dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan gobolka Togdheer isla markaana kaga hortagay magaalada Kalaksharka oo dhanka waqooyi kaga beegan gobolka Togdheer dadkan soo dhaweynayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ruuxayay calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland lama qoyan iyo sidoo kale ereyo ay u badan tahay soo dhaweynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland soo dhaweyntan ayaa ku beegmaysa xilli la filayo inuu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ka qayb galo ardayda ka qalin jabinaysa jaamacadda Burco ee magaalada Burco soo dhaweyntan kala duwan ee loo sameeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ee maanta soo gaaray magaalada Burco ayaa waxa ka qayb qaatay soo dhaweyntiisa mas'uuliyiinta kala duwan ee laamaha dawladda ee gobolka Togdheer ururada arrimaha bulshada gobolka Togdheer dhalinyaro aqoon-yahan iyo sidoo kale haween aad u tiro badan bulshadii kala duwaneed ee soo dhaweysay madaxweynaha inta u dhaxaysay hulooyinka Kalaksharka iyo sidoo kale degmada Qoyta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi degmada Qoyta kula hadlay bulshaweynta kala duwaneed ee ku soo dhaweysay halkaasi isagoo uga mahad celiyay soo dhaweyntoodani aad iyo aad waa mahadsantihiin Togdheer markay wadannimada timaado xamaasadeeda waa la yaqaanaa maantana aad baa muujiseen aad iyo aad baa mahadsantihiin degmada Qoytana aad baan uga mahadnaqaynaa soo dhaweyntan waxaan ka xumahay degmada Qoyta inaanu waqti badan oo hadal badan ay tala galaan kan ku gareyn burcoo dhan iyo jaamacaddii bayna sugaysa oo la saaka fadhiyay wixii dareen ka hadana waa ku hadalno soo doonaa aad iyo Muuse Biixi Cabdi waxaan leenahay madaxweyne ilaa saaka markii waagaasi bariyay dadkaagu halkaas kugu sugayeen soo dhaweynayeen way ku taagan yihiin soo dhawow qalbi furan gacmo furan niyad furan halkaan taaganay oo xuduudii gobolka Saaxil iyo gobolka Togdheer ilaa iyo Burco dadku saas u tuban farxad labaad bay saaka ii tahay waxaan saaka qalin jabinayaa oo aan ka mid ahay ardayda ka qalin jabinaysa digriga labaad ee master digriida jaamacadda Burco kulliyadda ash-shariica wal qaanuun taana aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ilaa cimrigayga maanta anigoo carruurtayda jaamacada maanta ka baxayaan oo iyaguna ay la qalin jabinayaan anna aan jaamacad iyo waxbarasho ka qalin jabinayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaan ugu mahadnaqayaa ugu dambeyn madaxweynaha qaranka waxaan leenahay madaxweyne Burco Togdheer bacadkaasay ku taagantay Nuux Maxamed Cabdi badda Aston 4 TV Burco